soo dhawaada walaalahayga qaaliga ah meel kastoo caalamka ka joogtiin waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh. Anigoo Cimraan Cabdirashiid Yuusuf halkaad iga daawanaysaan waa Cimraan Cabdirashiid Janaal. waa mar kale iyo muuqaal kale. waxaan idin rajeynayaa inaad caafimaad qabtiin sida aniga oo caafimaad qabo oo soo fadhiistay hortiina mar kale. aan u doonayaa inaan idin soo gudbiyo muuqaal kaleeto oo aad iyo aad u qiimo badan. si aniga nafteeda uga heshan waxaan rajeynayaa inaad naftiinana uga hesho. walaalahayga qaaliga haddii aad nagu cusub tahay ama aad nagu cusub tihiin aan dhahe Soomaaliga waa meesha loo jiido oo socona. haddii aad nagu cusub tihiin waxaan idin ka codsanaynaa inaad noo sii share gareysid ama waxaan idin ka codsanayaa inaad ii sii share gareysaan muuqaalkaanito, subscribe tan saartaan, like to comment waxba aan kala hayn. haddii hore noo la joogtina dee waxa hore u sameyn jirto waa taqaanaa. sii share garey walaalkayga qaaliga, like iyo comment waa kaasa. waxa waaye taas waajibun calayk inta inaad sameysid. caawa maxaan rabaa inaan idin soo gudbiyo inta muuqaalkay u gudgalin. waxaan rabaa inaan bogaadiyo arrin yar oo walaalkay Idris Cabdi oo youtuber caan ah oo taqaaniin waa arrin uu sameeyay. wallahi arrintaas anoo daawanayo waa la qiirooday. qiiro qof bil aadan ah meesha ay ka gaarto, macnaha qiirada meesha ugu dambayso qof bil aadan ka qiirooday ilaa ilin ay ku soo istaagso Soomaaliya. lacag diina lagu lahaa mooska tiirti inay ka shaqeysato, ilmaheeda ka biilato, diinta iska bixiso. Rasuul sallallahu alayhi wasallam wuxuu leeyahay man nafasa an mu'minin kurbatan min kurbi dunya nafasa Allahu kurbatan min kurbi yawm al-aakhirah yawm al-qiyaamah. ninka walaalkiis oo mu'min ah kurba ka feeda ilaahay asana wuxuu ka feeda adduunyada ugu dul feeda. ilaahay asana wuxuu ka dul feedayaa kurbo oo maalinta qiyaamo kurbooyinkeeda kamid ah. ninka walaalkiis ah wax arrin u fududeeya ilaahay adduunyo aqar u fududeeyna. ninka walaalkiis ceebtiisa asturana ilaahay adduunyada iyo aakhirada ceebtiisa asturaya. walaalkayga ilaahay waxa waaye kurbu ka feeday asana ilaahay kurbaha ka feedo. maamadaas kurbu ka feeday kullee waxa waaye asaga nahnu nahkumu dhawaahir wallahu yahkumu saraa'ir. dad waxay ku dhaayaan niyo waxa laga yaabaa inuu barnaamij ku sameysanayo ama uu iska dad iska giday ama annaga waxaan xukminaynaa wax aan aragno. ilaahay wax qulubta ku jira asaa xukmiyo, waxa caalimul qaybka ilaahay asaa xukmiyo, laakiin annaga waxa noo muuqdo baa xukminaynaa. maamada maadaama uu ka farxiyay dad ilaahay annaga asaga qulubtiisa wax ku jiro annaga ma garanayna aseena u taashaa. laakiin annaga waxaan aragnaa waxa ficilka uu sameeyay waa ficil wanaagsan oo ku dayasho mudan oo ma aragtay nin kasta oo dhalinyaro ah oo maanta horumar taagan ah inuu sameeyo. maamada wallahi way farxaday. ilaahay asana waxa waaye bedel khayr qabo u duceysay ducadeeda ka badan. halkaas aan uga soo tagno barnaamijkii Idris iyo maamada uu caawiyay sida waxa quruxda badneed uu sameeyay. walaalahayga qaaliga waxaan rabaa caawi inaan kala hadlo barnaamij ah sideen ku guuleysan karaa, sideen ku gaari karaa guusha nolosha adduunyo aakhira, sideen ugu guuleysan karaa nafsideeda, sidee u guuleysan kartaa. guulaha way kala duwan yihiin. maanta waxaad arkaysaa barnaamijka guul marka ka hadlayno ama najaax marka laga hadlaayo waxa waaye guulo fara badan jiro. qof wuxuu ku guuleysanayaa kubadda cagta, qof wuxuu ku guuleysanayaa orodka, qof wuxuu ku guuleysanayaa hanti tijaaro ku guuleysanayaa. laakiin si uu heli karaa nafsad ma aragtay guuleysatay oo macnaha oo meesha u dambeysay gaartay si uu heli karaa. maanta dad yooga aragtay guulaha xaqiijiya ama hantiilayaasha ama magac iyo sumcad iyo sharaf iyo hanti xaqiijiya inta isku darsaday xaqiijiya, ama dadka maanta cilmiga oo saaxiibka oo horumarka ka gaaray oo ma aragtay noloshooda xaqiijiya. sida dadka maanta shuyuuqda ah oo ma aragtay ehlu cilmiga ah oo maanta ma aragtay qudwa xasan ah oo dadka lagu dayda ah oo ku dayashada mudan guulaha noloshooda xaqiijiyeen. hantiilayaasha maanta haddii aad rabtid inaad hantiilo noqotid sadaada aad ku hormarisay hantiile ganacsade aad noqotid, dadkaas ayagana guuliya xaqiijiyeen. okay adigu sidee rabtaa inaad u guuleysatid? walaalkayga qaaliga soo dhawow. ninka aad arkaysid aad leedahay wuu guuleystay ama rabtid inaad maalin walba markaad soo martid meel aad dhahdid wallahi ninkan noloshiisa horumar uu ka sameeyay ama wuu guuleystay. ogsoonow wuxuu dhashay wuxuu ku dhashay horta 9 bilood. wuxuuna dhashay asaga oo qaylinayo
qaawan adduunyada ku soo biiray mararka qaar waxaa isdhahdaa adduunyada cadaalad ma falin laakiin adduunyada cadaalad ay fashaa ilaahayna waa caadil marka aan ku sheego walaalkay qaaliga soo dhawo dadkaas waxa la isdheeriyahay waa dadaal nafsiyan ah adduunyada arkaysid waa sida adoo joogtid tuulo rabtid inaad u safartid magaaladaasito iyo tuuladaasito ma taqaanid kiiloomitirka dhexdooda ku jiro mana haysatid gaari aad ku gaartid sahayda aad qaadanaysid waa inaad tuulada ka soo qaadataa ma garanaysid sahadaada meesha kugu doonto mana garanaysid dhaxda waxaad kala kulmi doontid duur ayaad dhaxda maraysaa duur cidla ah aadan ogeyn wixii aad kala kulmi doontid waxa aad kala kulmaysid aadan ogeyn duurkaas cidlada ah ayaad wajahaysaa tuuladaas inta u sii socotid magaalada iyo tuulada marka tuulada ka soo sahay qaadato oo soo baxdo dadka ka hor imaanayo ugu horeeyo ku arkayo aragtid inaad guushaada xaqiijisid oo u safartid waxa u socotaa inaad hadafkaaga gaartid nololeed ayaad u soo baxday dadka qofka ugu horeeyo oo ka hor imaanayo la imaa waxa waaye inuu kugu dhiirigeliyo uu ku dhaho waad gaari kartaa ee hore u soco iyo imaa inuu ku dhaho aniyo wax ma gaari kartid meeshaada fadhiiso ogsoono marka yay ku cajib galinayaan dadka amaantooda hadalka ay ku sheegayaan ku soo jeedaan qofka ku dhahay baa gaari kartaa iyo qofka ku dhahay ma sameyn kartid labadaba ay ku cajib galin bal waxa nasadaada ka soo dhex guuxaayo ayaa wax ku gaari kartaa dhaxdaas marka waxa kala kulmi kartaa waxyaabo fara badan wanaag xumaan samaan ma aragtay adi inta seert u qaado walaakiin soo koobo waxa dhahdaa dhaxda waxaad kala kulmi kartaa xumaan iyo samaan inta waa la kulmi kartaa xumaanta iyo ku joojinin naaga aad samaysid marka aad daal dareentid ogsoono maxaa lahaa Soomaali waxay dhahdaan marka meel uu qiiq ka baxaayo meeshaas waa laga nool yahay sababtoo daba ka shidan qiiq meeshu ka baxaa laga nool yahay waxba ka jiro tacab marka dareentid iyo daal wanaaga yar aad samaysid daalka iyo tacabka aad samaysid ogsoono markaas in aad u socotid wadadii guushaada aad gaari lahayd markaas bay wax jiraanbo rajo markaas ay jirtaa marka daal dareentid ay rajo jirtaa dadka kale waxa ay sheegayaan iyo barnaamijyada ay sheegayaan ay ku hagelin soco waad awoodaa inaad socotid okay aan u soo noqono marka hadaan rabo inaan guuleysto maxaa saldhig u ah maxaa aas-aas u ah waxa aas-aas u ah waxa saldhig u ah guulaha 3 qodob sida aniga soo baaray micnaha ama aan soo qortay ama fikrad ahaanteyda ila qurux badnaatay waxa 3daas qodob waa qodobka koowaad ee nafsadaada qodobka labaad oo ah xiriirka aala leedahay adiga ilaahay salaada qodobka 3aad oo ah hadaf muku dejisan yahay horta hadaf ma leedahay maxaa u socotaa inaad xaqiijiso maxaa rabtaa inaad sameyso 3daas qodob aa kala qaadayna qodobka koowaad nafsadaada Soomaalidu waxay ku mahmahdaa fadhiye food kuma yimaado maamaha inaas eedo amayna di adoo fadhido waxba kuma imaanayaan maanta waxba nin jiifis ciisdi bidal sida la sheegay amal ani maanta hadaa fadhido waxba kuma imaanayaan nafsadaada Sufyaan wuxuu leeyahay hadaad garatid nafsadaada baratid oo nafsadaada aad garatid waxyaabaha kale kuma dhibaayaan nafsadaada hadaad garatid wax kale oo ku dhibaaya ma jirto nafsadaada baro maanta wallahi oo billahi qof haduu dhaho shaqo raba gurigiisana u dhax fadhi ka waran shaqooyinka dad uu diro qofna ma aragtay fadhigiisa kaaga ma kacaasiko shaqo ku maraadina kumana soo xasuusana laakiin adiga xasuuso adiga waxa u baahan tahay raadi adiga waxa rabti inaad sameeyso adiga ku dadaal samee daalka dareen marka aad daal dareentid hadaa ku sheey marka aad daal dareentid ayaa dareemaysaa in meeshaas ay wax jiraan meesha uu qiiq ka baxo ayaa laga nool yahay Soomaali sidoo marka waxa laga rabaa nafsadaada ayaa u ah saldhigga koowaad ee guulaha inaad xaqiijisid ama nafsadaada ay guuleysato sababtoo ah nafsadaada u sheeg daqiiqadooyin mid kale ta muhiimada halkaan soo imaano 3 daqiiqo 4 daqiiqo maalintii inta kaliya meel fadhiisatid u sheeg inaad rabtid inaad guuleysatid nafsadaada u sheeg nafsadaada inaad rabtid inaad guul gaartid
guusha aad rabtid inaad gaartid nafsadaada saacado waxa ku leeyahay inta meel fadhiisatid suureeso sawiro ka fikir guusha aad rabtid inaad gaartid sidaa rabtid inaad u faraxdid markaa guushaas gaartid taqayyal suureeso sawiro mas'alada kale jirtana waxa waaye dhageyso maskaxdaada waxa ka soo dhaxbaxay waxa ka codsanaya inaad dhageysatid madaxaaga go'aamada ka soo dhaxguuxaya ma aragtay intaad meel fadhiisatid daqiiqado intaad meel fadhiisatid madaxaaga waxa ka dhaxguuxayo barnaamijka maskaxdaada wax ay ku sheegaysa dhageyso dadka waxa lagu kala hormar dadka waxa lagu nafsadaada is dhageyso bal adiga is dhageyso madaxaaga waxyaabo far badan ka dhaxguuxaya barnaamijyo badan uu ka dhaxguuxaya adiga bal inta kaliya meel fadhiisatid is dhageyso oo ma aragtay waxa aad sheegay is dhageyso 2 daqiiqo 3 daqiiqo adiga fursad is dhageyso aamus deganaan samee is dhageyso kaliya markaas ayaad ogaanaysaa waxyaabo fara badan nafsadaada wixii ku sheegayso go'aanka ay ku leedahay nafsadaada gaar go'aankaasi inta ku dhaqaaq waxaan hubaa 100% inaad ku liibaanaysid dhageyso nafsadaada maskaxdaada waxyaabaha ka soo dhaxbaxay dhageyso markaas kadib markaa maskaxdaada dhageysatid waxa ka soo dhaxbaxay fikirkaaga aqligaaga raa'igaaga waxaana ay kaashid waxa soo gaaraysa go'aan sida u jilicsan hilibka oo kaleeto oo ku mataatax maaragtay markii hilibku u mataataxo oo hilibka dabka la saaro oo biyo badan lagu saaro dabka oo mataatax go'aan marka dambe waxaad gaaraysaa jilicsan oo ma aragtay adigu ku anfacayo laakiin dhageysa marka ugu horeysa nafsadaada qodobka labaad u gudubno qodobka labaad oo ah isku xirnaanta ilaahay adiga ilaahay sa isku xirntiin وانا الصلاه رسول صلى الله عليه وسلم حليه اول ما يحاسب به العبد يوم القيامه الصلاه فان صلحت صلحت الاعمال كلها هدي ونكست الاعمال وقفك بلادك كنا ونكسنانا ولا له قال لي كلام marka ana mid rabayna ku sheego hadii aakhira lagu hormarina amaashaado dhan ee ku xiran tahay salaadaada wanaagsanaadan amaashaado dhan ee wanaagsanaanis adduunyada hadii salaada adiga iyo salaadaada ay toosiin amaashaado idilna way toosaysaa amaashaado idilna way toosaysaa kal qiyam wa hawaaye isku albaabka koobaad ee laga galo guusha as-salaatu hadii salaadaada toosan tahay waxa waaye hooshaago idil kaleetana way ku toosaysaa ilaahay adduunyada asaama mulkoonka asaama mul adi ilaahay ka waran 5 maalintii 5 jeer ay iswacdaan isla hadashaan maanta qofka aad maanta xiriirisid su'aasha isweydiinta madana qofka maanta xiriirisid oo ma aragtay maanta aad iswacdaan oo iska warqabtaan ani maanta saaxiibka iska warqabno ama cunuga aan dhalo iska warqabno ama ma aragtay qofka aan maanta sida tooska iskaga warqabno dadka waa iskaga dhowna adigu kadalik hadaba hadii maalinta ka waran ilaahay 5 jeer aad wacdo oo ilaahay 5 jeer hor istaagtid ilaahay uu kaaga dhawaanaa marka dadka idil sama ilaahay wax walba kaaga dhawaanaa sama ilaahay xilkiina uu toosayo marka hadafka koowaad ee laga galo ama albaabka koowaad ee laga galo guusha ayaa ah walaalkeyga salaad halkaas aan u gudubno qodobka saddexaad hadaf yeelo maxaad rabtaa inaad xaqiijisid maxaad rabtaa inaad sameyso maxaad rabtaa in aad noloshaada aad ku taameysaa yaraantaada ilaa hadda maxaad ku taameysaa maxaa rabtaa inaad hanti la noqoto ma waxaa rabtaa inaad nin magac leh hanti leh wax walba leh inaad noqoto ma waxaad rabtaa inaad noqoto sheekh cilmi laga qaato kii kaleeto kaal arag inaad noqoto wax alaala wax adiga ka dhex guuxayo maskaxdaada ka dhex guuxayo hadaf ku noqdo maxaan adduunyada waxa jirta dadka marka baaritaan la sameeyo waxa la dhahaa 95% waa bila hadaf 5 baa hadaf leh garanayo maqsadka u jeedaan iyo meesha targetka u saaran yahay oo isha ugu taalo meesha diiradda u saaran tahay meesha ay diiradda u saaran tahay 5% baa garanaya dhahan dadka ma aragtay wax baaro marka waxay ku leeyahay hadaa garanaysa meesha u socotay ay higsanaysid waxa ka mid tahay 5% oo ah oo liibaanay waxa jira dadka qaar hadaf dejistay rabaan inay hadafkooda gaaraan hadana aan garanaynin
wax la dhahayo sugnaansho hadafkaaga ku dhax qeex ama ku dhaxgeli wax la dhahayo sugnaan waxaan adaa jidiisatay adaa qoratay waxaad rabtaa inaad sameeysid waa ka heshay hobbigaaga waaye inaad barataa rabtaa inaad ku guuleysataa rabtaa inaad ka shaqeysaa rabtaa si alaala saarta oo aad macnaha waa hadafkaaga waxaad raacaysaa oo kaliya sugnaan waxaa laga yaabaa dad iyaga oga dhiman tahay shibran taako oga dhiman tahay tilaako oga dhiman tahay guusha ka cararo labada nin oo maxaa la oo isqaniini oo isku dhignaa hadda daqiiqad isii hayn lahayd anna waa qeylin lahaa soo guushu waa intaas oo kaleeto waxa aad sameynaysid ku celcelin u baahan yahay ku adkaysi u baahan yahay xaqiijiyo awoodaa ku sugnow dejiso hadaf meesha u socotid garo inta hadafka leh وما عرفت maanta asxaab hadaf ilaahay waxa ka baryaaya oo ka codsanaya in uu naga dhigo kuwo hadafyadooda karon sheego sameeyana waxay u socdeen qabtaana waxay noloshaanayta adduunyo loo keenay ilaahay asaa xaq ku hadlo ilaahay asaana xaq dadku ku hanuuniyo ilaahay naga dhigo kuwo xaq ku hadlo xaqana ku hanuunsan walaalihiga qaaliga ah muuqaalkan sii sheegayaa waxaan idin dardaarmayaa inaan dejisano haday ahdaaf aan lahayn inaan maanta dejisano ahdaafteena haddii ahdaafta inaan noo dejisan tahana aan maanta ku dhaqaaqno ahdaafteena aan ku sugnaano ahdaafta aan dejisanay aan ku dadaalno anigu waxaan rajaynayaa inaan guuleysto adigu waxaad rajaynaysaa inaad guuleysatid waxa waaye ha fiirin dadka kaleeto jidka aragtid inaad qaadid ogsoono waa cillo dadka rabaan inay guuleystaan waa dad yar dad rabaan inay xaqiijiyaan ahdaaftoda waa dad yar inta rabin inay hadafkaaga gaartid ama iyaga waa hadaf u dejisaneen oo adduunkan iska dhaxway hawaayo ayaa badan waxay rabaan kuwaas inaan la haawdid aad iskala dhex socotid ayay rabaan soo ma garanaysid way ku baaqayaan oo ku wacayaan way ku amaanayaan wayna ku ceenayaan labadaba yay ku cajab gelinin ha ku cajab geliso nasadaada salaam calaykum wa rahmatullaahi ta'ala wa barakaatuh.